16 loogo caan ah haddana ay qarsiin macnihiisa aadan adigana wax ka ogeyn. lambarkii 16aad Hyundai. dad badan ayaa u janjeeraya inay u maleynayaan in sumada Kuuriya Koonfureed ay tahay xarafkii ugu horeeyay ee magaceedu, laakiin dhab ahaan waraaqada H waxay muujinaysaa laba qof macmiil iyo wakiil shirkadeed oo gacan qaadaya. lambarka 15aad Adidas. magaca Adidas waxaa laga keenay magaca asaasi Adolf Dassler. astaatu shirkadu waa isbedeshay waqti kadib, laakiin had iyo jeer waxaa ku jira 3 nooc. qaabeynta hadda jirta waa 3 xariiq xagal oo wada jira. 3 xagal tani waxay astaan u tahay buur, taasoo aydu matalaysa caqabadaha ay dhammaan ciyaartooyda leeyihiin in ay ka adkaadaan. lambarka 14aad Apple. Rob Yanoff, nashqadeyaal abuuray caanka shirkadda caanka ee Apple, ayaa sharax sida uu la yimid fikradda. waxaan soo iibsaday bac dhan oo tufaax ah oo aan ku dhex riday foorno, oo waxaan qaatay waqti aan ku sawiri jiray 7. adigoo isdayaya in aad sawirka u jebisid wax fudud. qaadashada qaniinyada tufaaxa waxay ahayd qayb ka mid ah tijaabada oo gebi ahaan waxaan ogaaday qaniinyada inay sanqada la mid tahay ereyga kombiyuutarka ee byte. lambarka 13aad Vaio. labada xaraf ee ugu horeeya ee astaantu Sony Vaio waxay sameysteen muujad taas oo matalaysa astaan analooga ah, halka labada ugu dambaysa oo ay la mid yihiin tirooyinka 1 ilaa eber. taasi waa astaamaha digniinta ee dijitaalka ah. lambarka 12aad Amazon. jaleecada hore astaanta Amazon waxay u muuqataa in aysan ahayn wax gaar ah, laakiin waxaa lagu qaabeeyaa falsafada shirkadda iyadoo ay maskaxda lagu hayo falaarta originalka. waxay la mid tahay dhoola cadeynta, maadaama shirkaddu ay rabto macaamiisheeda in ay qancin falaarta. sidoo kale lagu kala fidiyey in u dhaxaysa xarfaha A ilaa iyo Z. gabi ahaanba ka iibso wax kasta oo loo maleyn karo laga bilaabo A ilaa iyo Z. 11 Baskin Robbins. meelaha midabka sida midabada leh BR ee astaanta halkan waxay ka kooban tahay lambarka 31, kaasoo ah tirada dhanka ku kala duwan ee jalaatada Baskin Robbins uu isticmaali jiray caan ahaan. lambarka 10aad Toyota. dad badani waxay isbarbardhig ku sameeyeen astaanta baabuurta soo saara ee loo yaqaano Toyota Car, oo soo saarta sawirka qalinleyda oo xiran koofid aan caadi ahayn, laakiin dhab ahaantii oo matalaysa muuqaal sida isha cirbada leh oo dilaacday. tani waa tilmaam bixin ka helay shirkadii hore oo ay soo saari jirtay mashiinada dharka waxaa lagu karsado. isla mar ahaantaana qaybaha shakhsi ee astaanta ayaa weliba ku dhawaaqaya xarfaha magaca shirkadda Toyota. lambarka 9aad Continental. soo saara caan ka ah taayirada gawaarida. wuxuu leeyahay astaan ay ku qoran yihiin labada xaraf ee ugu hore oo muujinaya isteenka gaariga. lambarka 8aad Formula 1. haddii aad si taxadar lagu eegto booska cad ee u dhexeeya xarafka F iyo xargaha gaduudka ah ee ku yaala astaaniga Formula 1, astaanta ayaa sidoo kale loogu talagalay in ay matalaan garaaf ahaan xawaaraha ay ku guuleystaan gawaarida 1. lambarka 7aad Bantrust. astaanta bogga caanka ee Bantrust oo dadku u isticmaalaan in ay ururiyaan sawirada ay ka jecel yihiin dhammaan shabaga oo ku dhijiya miiska ogeysiiska ah ee internetka ayaa leh sawirka pink ka qarsoon xarafka Bantrust. lambarka 6aad Beats. oo soo saara ka ah qalabka maqalka ee fadhigiisu yahay Mareykanka. wuxuu adeegsadaa astaan ee warqadu B u egtahay qof xirtay mikrofoonka. lambarka 5aad Toblerone. shirkadda shukulaatada caanka ee fadhigeedu yahay Bern, Switzerland. waxaa ku jiro Ciote of Beers astaankeeda iyadoo loo eegayo xaqiiq ahaan in Bern marka qaar loogu yeero magaalada Beers ee dalka Switzerland. lambarka 4aad BMW. inta badan waxaa loo maleynayaa in qaybta dhexe astaanta BMW ee astaan u tahay meeraha duulimaadka leh ee diyaaradda iyadoo loo raacayo taariikhda shirkadii hore ee tiknoolajiyada duulista, laakiin dhab ahaantan waxay qayb ka mid tahay caalamka Bavaria aaga Jarmalka halka ay shirkadda ka shaqeyso asal ahaan. lambarka 3aad LG. astaanta shirkadda korontada ee Kuuriyada Koonfureed LG waa muuqaal la habeeyey oo wejiga qofka sida laga soo xigtay shirkadda. tani waxay ka dhigan tahay himladeeda in la ilaaliso xiriirka caadiga ah xiriirka aadanaha ee macaamiisheeda.
lambarka labaad Evernote maroodiyaasha ayaa caan ku ah inay leeyihiin xusuus cajiib ah oo ay ku jirto awoodo ay ku xasuustaan labada waji iyo dhacdooyinka sababtaas ayay u tahay in Evernote oo ay codsi warqadasho ay u isticmaasho sawir xayawaan ah qayb ka mid ah astaanteeda qaybta geeska maroodiga waxaa intaa dheer waa laablaabma si la mid ah sida ay dadku had iyo jeer isku laabto geeska book lambarka ugu dambeeya Coca-Cola astaanta caanka ee shirkadda Coca-Cola oo ku dhex tar xarafyada O iyo L mid si cad ayaa loo arki karaa calanka Danish-ka si la mid ah shirkad ahaan ayaa haddana shirkadu u isticmaashay tan iyada oo qayb ka ah ololayaasha suuqgeynta ee dalka Scandinavian-ka aad iyo aad baad u mahadsantihiin daawadayaashiina daawaday videogan xiisaha gaarka lahay aynu ku soo qaadana maanta 16 loogo oo adduunka ugu caansan haddana micnooda ay qarsan yihiin wuxuu ku fadhiyaan waa aniga oo Cali Nuur Xasan idin soo jeedinaya barnaamijkan xiisaha leh waxaan idin leeyahay subscribe share comment iyo like midnaha ka marsanaan si aad u hesho fiidiyooshan iyo midkaan iyo midka xiiso badan waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo